toddobaadkani kadib markii dowladda Ruushku ay ku duushay dalka Ukraine waxayse soo tarayay xanibaadaha la saarayo waddanka Ruushka gaar ahaan marka ay noqoto dhinacyada ciyaaraha iyo dhaqanka haatan xayiraado cusub ayaa lagu soo rogay Ruushka tani ma aha dhinacyada dhaqaalaha iyo quwadda militariga balse waxa xayiraad lagu soo rogay bisadihii waddanka Ruushka xiriirka caalamiga ah ee bisadaha ayaa sheegay in dhammaan tartamada iyo bandhigyada bisadaha ee caalamiga ah ay ka joojiyeen bisadaha ka soo jeeda waddanka Ruushka xiriirkani loo yaqaan Federation Internationale Feline ee 5 waxa ay ku sababeeyeen sababta ay bisadaha u beegsadeen inay tahay duulaanka Ruushka ee Ukraine guddida sare ee xiriirka bisaduhu waxa ay sheegeen inaanay aqbalaynin tacadiyada aadamaha ka dhan ah ee Ruushku ka geysanayo waddanka Ukraine waxaanay intaasi ku dareen in xitaa bisada loo aqoonsado inay ka soo jeedo asal ahaan Ruushka aan loo ogolaan doonin inay ka qayb qaadato tartamada iyo bandhigyada caalamiga ah ururkani oo isku sheegay inuu yahay qaramada midoobay ee bisadaha ayaa waxaa qayb ka ah in ka badan 40 dal waxaanu sanad walba qabtaa bandhiga bisadaha adduunka bisadaha ayaa lagu tartansiiyaa waxyaabo kala duwan waxaana kii ugu dambeeyay ee sanadkii 2021 uu dhacay bishii Oktoobar isagoo ka dhacay waddanka Talyaaniga halka ku xigana la qorsheeyay Oktoobarta soo socota kaas oo ka dhici doona waddanka Belgium